واني سلام دمان صاحبada ku xiran janaalkeena bidaaya aad ayaan idinkaga mahad celinaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idin wadaago xog iyo xaqiiqooyin u gaar ah filimka jacaylka ee Sirvitum wuxuu ka mid yahay aflaamta jacaylka ee Bollywood ka sameeyeen kuwooda loogu jecel yahay waana filim looga hadlay qaacidada ah in laba qofood oo kala fog aanan weligood is arkin in xiriir jacayl ay sameyn karaan balse intaan u guda galin xogta iyo xaqiiqooyinka filimkan laga diiwaan geliyo fadlan haddii aad janaalka cusub tahay nagu soo biir muuqaalka dadka shalaag inoo saar sii share kari oo la wadaaga asxaabtaada soo dhawaada saaxiib فيلم سيرفيتوم ومid kamid aflaamta jacaylka ee aad kala jecel yahay daawashadiisa waxa uu soo baxay 4 June sanadii 1999 waxa hogaamiyalka wada Sanjay Kapoor Priya Gill Sushmita Sen Sharif Monish Balnika lagu magacaabo Santaag ama naaga xoog waxa uu taqaanaba Kadir Khan sidoo kale Johnny Lever ama amati waxa tiraadaba filimkan waxa agaasimo ka ah ninka lagu magacaabo Agathiyan halka uu soo saaray ka yahay Boni Kapoor oo walaalka Kevin jalaaga filimkan Sanjay Kapoor markaan eegna filimkan lacagaha lagu qarash galiyay waxa lagu qarash galiyay 3 karoor waa ku dhawaad $415 Mareykanka waxa uu keenay 5.8 iyo 5 karoor waana in ku dhow $700 Mareykanka saaxiibada natiijada waxa uu noqday filim hit ah ama filim guul weyn gaaray markaan eegna filimkan xaqiiqooyinka laga diiwaan galiyay la dhowr xaqiiqo ayaan ka eegi doonaa saaxiib xaqiiqada ugu horeysa filimkan aan kala wadaagi doono caawiyaan saaxiibayaal waxa la leeyahay marka hore filimkan waxa la rabay in loo dhiibo jalaaga lagu magacaabo Salman Khan laakiin uu ka cudur daartay oo uu mashquulsanaa laakiin Boni Kapoor ayaa ka codsaday in filimkan muuqaal marti uu ka siiyo waana uu kaga soo muuqdo saaxiibayaal muuqaal marti ayuu ku leeyahay dadka filimkan fiirsada way arkeen xaqiiqooyin kale laga diiwaan galiyay waxa kamid ah waxa la leeyahay sheekada filimkan baasal ahaan waxa laga soo minguuriyay filim dhanka ay koonfurta Hindiya ama Tamil ah ka oo lagu magacaabo Kathal Kotai oo la daawaday sanadii 1996 xaqiiqooyin kale laga diiwaan galiyay filimkan waxa kamid ah waxa la leeyahay filimkan waa filimka kaliya ee sameeyaan jalaaga lagu magacaabo Sanjay Kapoor iyo sidoo kale Sushmita Sen kadib filimkani aflaam kale iskala ma aysan soo muuqan saaxiibayaal xaqiiqooyinka laga diiwaan galiyay waxa kamid ah waxa la leeyahay filimkan waxa lagu sameeyay 3 magaalo kuwa oo kala ah Kerala Naintalyal magaalo lagu magacaabo iyo sidoo kale Houston oo Mareykanka ah labada kale magaalo ee Naintalyal iyo sidoo kale Kerala Hindiya ay ka tirsan yihiin Kerala oo bartamaha Hindiya halka Naintalyal ay ku taalo xuduudda dalka iyo Nepal iyo Hindiya u dhaxaysa marka Houston waa dhanka ay Mareykanka Texas ay ka tirsan tahay si aad ka arki kartaa muuqaalka heesta dilbar inta ugu badan waxa la xiriir lagu sameeyay oo laga dheehan karaa dabaqyada ugu caansan ee magaalada Houston ku yaala ee heesta dilbar ka soo muuqdo waxa kamid ah dabaqyada mataanaha ee Two Alliance Center sida hadda muuqaalka aad arkaysa ka dheehan kartaan iyo sidoo kale sawirka ka dambeeya saaxiibayaal haddaba sidoo kale markii la eego Kerala iyo Natal inay Hindiya ka tirsan yihiin waxa xiriir lagu soo bandhigay heesta caanka ah Beli Bar sida hadda maqli karto oo fanaanka Kumar Sanu uu ku leeyahay Kerala oo meel kuleel badan ee Natal qaw iga soo dir haddaba intaas ayaan kusoo gabagabeynaa saaxiibayaal xogtii xaqiiqooyinka aad kala wadaagay filimka jacaylka ee Sirvitum fadlan haddaad ka heshay muuqaalka like noo saar sii share gareeyo la wadaag asxaabtaada waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena